waxaan tegay magaalada Laascaanood waxaan tegay magaalo laga qaxay oo shaariciyada waaweyn haadku ka wableeyay waxaan tegay magaalo shacabkeedii madaafiici ka saartay oo suuqyadeedii ganacsigu yihiin agaray damyo kuwa haawanaya barnaamijkeena waxaynu dul iyo daaf ku soo qaadan doonaa halka waxa ka dhacay dhibta waxa dhalay iyo noocyada dambiyada dagaal ee lagu galay iyo raadadkay ka tageen Laascaanood ugu horeyn waxaan tegay qabuuraha dadka magaalada lagu aaso si aan u soo arko xabaalooyin gaar ah kuwaasoo ka tilmaaman kuwa wadka iyo geeridu iskood ugu yimaadeen waxaa ka mid ah xabaalahaasi kuwa ay ku duugan yihiin muddadii Somaliland joogtay dadkii loo maleegay ee ku godgolay dilalkii qorshaysnaa xabaalahaas midabka buluuga leh xabaalaha ka duwan waxa weeye xabaalihii 119 qof madaxa laga toogtay ilaa iminka aan la garanayn cid dishay waa isla qabuuraha dabadeed waxaan tagay xabaasha loo baxshay dabkii kacdoonka oo ah qabriga uu ku duugan yahay Allah u naxariistay marxuum Hadraawi Sango shakhsigii ugu dambeeyay ee lagu dilay madaxdoobka ayuu ahaa 119 qof waa qofkii 119aad waana qofkii uu ka kacay kacdoonkan gaadhay in magaaladii Somaliland gabi ahaan balgas Hadraawi kuma aha Hadraawi wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo aqoon-yahan ah oo aan dadka dhibin oo cibaado badan oo dadka gobolka Sool degan ama gobolada ku xeeran ba laga yaqaan oo dadka aan dhibaatada lahayn qof reer magaala qof aqoon leh qof cibaadaysto oo markaa isagoo masaajidka soo baxay marxuumkan dhagridii la dhagray waa tii soo gabagabaysay sii joogitaankii Somaliland ee magaalada tan Laascaanood waxaan kaloo tegay qabuuraha ay ku duugan yihiin 22 qof ee dhashiikaha lagula dhacay shaariciyada gudaha Laascaanood kadib kolkii uu qarxay kacdoonkii selka ku hayay cadhada gaamurta ee ka dhalatay su'aal 15 sanadood soo taagnay taasi oo ahayd yaana ugaarsanaya iyo maxay galabsadeen hal doorka reer Laascaanood waad aragtaanoo maamuuskii xabaaleed ma laha waxa kalifayna yeelan waayeen waa dadkii shacabka ee xaqudurka ee ku dagaalamay Somaliland naga baxday maadaama dadkaygu u dhamaaday dadkii shacabka ee hubka soo gurtay iyo dadkii aan hubka soo guranay guryaha joogay ee hoobiyaha lagu garaacay bay isku jiraan marka hadda halkan saad u arkasaanba 6 qof baa ku aasan oo wata board ku qoran yahay halkan waxa ku aasan 22 halka 16 baa ku aasan halkan dhow aan gaari karno oo inoo muuqata iyaduna tirooyin inta la leeg baa ku aasan ilaa ay ka tagi doono tirada ugu badan oo ah 56 qof 56 qof oo hal meel lagu wada aasan oo iyadana aan tagi doono hadii Ilaahay ka dhigo waxaan tegay xabaalo wadareed lagu wada guray rayidkii lagu garaacay madaafiicda xabaalaha waxa wada hurdaa inta badan shacab duqaymuhu ugu tageen guryahooda iyo kuwa hubka waaweyn ee magaalada ku soo dhacay uu ka gurtay shaariciyada magaalada sidoo kale iyaguna waxa hurdaa shacab naftooda maalkooda iyo magaaladooda difaacanaya qabuurahan maytida cagafta lagu aasay oo tiro ahaan 10 kor u dhaafay ku dhawaad dadka ku aasan tirooyinkooda farqi weyn baa u dhaxeeya oo xabaal kasta oo wadar loogu hoyday midbatii ay ka dambeysay waa ka tiro badanta taasi oo muujinaysa in duqaymaha iyo dagaalku maalinba maalinta ka dambaysa ay ka qadhaadhaayeen waxa qabrigan koowaad wada hurda 6 marxuun kan xiga 8 marxuun kan xiga 11 marxuun kan ku xiga 15 marxuun kan xiga 20 kan xiga 17 marxuun sidaasi ayay u sii kala sareeyaan ilaa laga gaadhay kan u dambeeya xabaal wadareedyada ragga kaasi oo ay ku wada duugan yihiin 56 nin oo isugu jira da walba dhalinyaro iyo badcadaantii reer Laascaanood waxaan tegay xabaalo wadareed iyaguna dumar ah oo laba ka kooban kuwaas oo ay ku wada aasan yihiin 13 dumar ah sidoo kale waxaan tegay
xabaal wadareedkii lagu wada amsiiyey hooyo iyo 7 carruurta ahaa ee madaafiicdu ku dumiyeen gurigoodii. qisada beertaabadka ahi waxay tahay in qoyskan oo uu ka nool yahay aabbihii lama duuray 7 uu dhalay iyo ooridiisiba in lagu hayo mid ka mid ah isbitaalada dhimirka ee magaalada Garowe. daada ubadka hooyadood la hurda xabaashan waxay u dhaxaysaa 9 jir ilaa 2 jir nuujinta haatan ka baxay. waxaan tagay daarihii lagu dumiyey hubka kiisa ka xariman rayidka iyo magaalooyinka. waa guryaha lagu garaacay madaafiicda iyo qoryaha dhuumaha badan ee BM-ka loo yaqaano. qisooyin yaab leh ayaa ku duugan magaaladan la duqeeyay. inta la og yahay colaadaha riiqda dheeraada ee dunida oo ay curadu tahay tan Falastiin iyo Israa'iil ilaa maanta waxa ka reeban oo wali laga soo warin in la beegsado goobaha wax lagu caabudo iyo isbitaalada danta guud. halkan laascaanood waxa la beegsaday oo goobaha dadka lagu laayay kamid ah masaajidda uu ka soo yeedhayay codkii diidmada gumaadka iyo duminta magaalada tan. lama arag adduunka dushii wax masaajid duqeeya hataa qolada maaragtay alxamdulillaah rabbil aalamiin Falastiin iyo Israa'iil waa kii isduqeyn jireen yahuudi waligi wax masaajidka saa u duqeeya ma aan arag tan ka hore alxamdulillaah rabbil masaajidkuna kan kaliya ma aha masaajidada badan ba duqeysan ilaa goobihii isbitaaladii iyo dhulkaas oo dhan baa iska duqeysan. marka waxa weeyaan waa madficii halkaa kii dumiyey baa siba yaalo waka. waxaa toos loo beegsaday isbitaalkii ugu weynaa magaalada oo la dumiyey qaybihii halbowlayaasha u ahaa. qaybahaasi oo ay ku jiraan bangigii kaydka dhiigga xilli baahida ugu weyn ama ugu badan ay dhiig tahay. dadkii dhiigga shubi lahaana ka qaxeen magaalada. gebi ahaanba uu burburay bangigan dhiigu mana shaqaynayo. way ka sii muuqdaan weli waxaa ku sii jira dhiigagii markaa kaydka ahaa ee ku jiray sida idiin muuqata. weli dhiigagii baa qaar ka sii jira. gebi ahaanba waa ka kac ma shaqeeyo. xilligii ugu baahida badnayd ee dhiig uu isbitaalkani u baahnaa weeye xilligii ugu dhaawacyada iyo dhimashada badnayd weeye. sida dhakhaatiirtu sheegayna dadku intooda badan ee dhaawacyada leeday waxay u leedeen waa dhiig la'aan. waxa la duqeeyay soo saarayaashii oksijiinta, waadhkii hooyada iyo dhallaanka, waadhkii emergency-ga. dagaalka waxa lagu laayay dhakhaatiir caafimaad oo shaqada nafbadbaadinta ku guda jiray. waxa la beegsaday oo la burburiyay 2 ka mid ah ambalaasyadii ama badhooligii soo gaadgureynayay dhaawacyada iyo meydadka, kuwaasoo madaafiicda lala eegtay. sidoo kale waxa dhacay dadka in dhaawacyada madaafiicdu uga daba tageen iyagoo waadharka isbitaalada lagu dabiibayo. anigoo dhaawac ka biskooday halka baridaanta iga dhacday halka ka soo baxday islaanta markaa ka jaaysta laga qalay wax yeesho dhowr jeer laga qalado markaasaan kooma galay. qori shaashuutaro toogaal halka caloosha iga haleelay halka dambe misigtay oo iska soo garan araxdu way ka baxdo dhabarka waxa qaba marka adu 3 bilood soo jifaysaa leeyahay. xangulaha wax ku gaadheen may xangulaha ma gaadhin laakiin dilaac baa jira marka waa halisaa. dhakhaatiirtu waxay u soo joogeen waxaan qalbiye kale suuraysan karin. waxay u soo taagnaayeen kamaradaha duula kuwooda wax lagu basaaso oo qaadaya taargetka duqeynta isbitaalka kadibna duqeymuhu dhacayso. waxay u soo joogeen meyd kala guri waa. qisooyin argagax iyo xanuun badan ayay la kulmeen. Dr. Shuweeriya halka waxaad u soo joogtay iyadoo dhaawaca laba dhigayo, iyadoo kuwaad u shaqaynaysaan dhimanayaan, iyadoo shaqaynaysaan oo laydinku duqeeyo dusheeda. maalmaha qaraadha idin soo maray Shuweeriya hal iyo laba waxyaabii kugu argagaxa badnaa. والله عبد الساقو waxaan u maleynayaa hal iyo laba ma noqon karaan laakiin haddaan soo koobo maalmihii iigu qaraaraa waxa kamid ahayd staffkayga mid kamid ah hablihii la shaqeynayay in traumatizerka iyo maartay BM-ka iyo qoryaha waaweyn ee lagu madaafiicda lagu garaacayo magaalada darteed dadku say feeling-ka u kala handle gareeyo kala duwan tahay in ay mentally depressed noqotay oo ay af Soomaali ahaan waxa lagu dhahaa qofka dhimirka uu noqday oo ay sii wadi kari wada shaqadii
waxaa kaloo iigu dhib badnayd oo iyadna aad ii damaqda annagoo ambalaasta dhaawaca aan keenaynay farabadnaantiisa laga fursan waayey in xataa ambalaasta sometimes aanu fuulno in aan taagnaa iyadoo 3 ambulances same place taagan inta qor lagu dhuftay innan ka mid ah inamadii i caawinayay biyaha gaariga ila saarayay intay ku dhacday uu barti ku naf waayay aanan u gacanteeda ku soo qaadan ku keenay cusbitaalka gudihiisa taasna it was one of traumatized oo still maskaxdayda maaragtay aan ka bixinin oo aniga laftirkayga trauma igu keentay marka xataa dadka kale laga yimaado waa gartay saddexda ambulance waa burbureen laba ka mid ah waadna aragteen oo we have it pictures kood iyo wixii oo dhan alxamdulillah dadkii gudaha ku jiray waxba kuma ay noqon laakiin waxay galaafatay inan yar iyo inan ku dhintay inantana dhaawac weyn baa gaaray she was 9 years I think meelahaas dhimashada iyo dhaawacyada idin soo maray tirada guud waxaa la sheegay in dhaawac uu ku dhow yahay 800 ilaa 900 inta u dhaxaysa dhimashadu 200 cagacageynayso dadkaasi ma dad dagaalamaya u badnaa mise waa rayidkii magaaladan lagu duqeeyay cabdisaaqow dadka dagaalamayay nambarka ka dhintay konton xataa ma gaadha dadka ugu badan ee dhintay waa dad rayida waa dad shacaba waa dad shaqaala waa dad health workers ka mid ah xataa oo dadka ugu badan ee shaqaalaha hadda waxaan luus garaynay ilaa 3 qof baa naga dhintay oo caafimaadka fiilka iyagoo gacanta ku haya ku dhex dhintay isbitaalka lagu duqeeyay kuwo ambulance iyagoo saaran ay ku dhacday oo paralysis noqdo markii dambena dhintay ilaahay ha raxmada intii dhintay but like dadka inta ugu badan ee dhimatay waxay ahaayeen dad shacaba most of them qolalkaygii meydku yacni tiradii intay ka bateen aynu waxaan isticmaalayna waararka inaanu dhigno markaasaa waararka inta lala dhaafo waxaa la dhigayay banaanada meydadkii kuranin vakova inaanu dadka gelino bicihii loogu talagalay meydka ayaan awoodi kari weynay dhibaatooyinka dhacay bay ka mid ahay xaafadaha waxaa laga soo helayay 2 days later dad duqaymeyntay ku dhaceen ku dhintay oo la bacsho kadib meydkooda laga dhaxlay so waxay ahayd wax aan ilaa haddana way socotaa maaha wax istaagay it was traumatized waxyaalaha xataa ay saameyntu na gaarsiisay waxaa ka mid ah qaybta hooyada iyo dhallaanka waxay ahayd meesha mainka u ah centerka ugu weyn cusbitaalkan u ahaa general hospitalka bishii minimum waxaan qaban jirnay 250 hooyo 250 hooyo wax ka badan baa dhalmo caadi ku sameyn jiray qalin saaka albaabadiisu way banaan yihiin hooyooyinkii waxaa la keenay kuwo iyagoo foolanaya oo isku sawaaban oo u baahan C-section in loo sameeyo inta la keenay xaaladaha Socdiya duqeymaha daraaddo dib uga cararay banaanada ku dhalay inta hooyo ilmo dhacisay tiradooda xad le inta ilmaha uu ka dhintay luus garaysay ma xisaabin karno yacni dhimashada waxa ka daran impactiska kale ee haltigay ku yeelatay deegaanka oo ay gaarsiisay waxyaalahaas iyo waxyaalo fara badan oo de factors waxa ka mid ah dhibaatooyinka soo gaaray iminka qayb ka mid ah qaybaha intay duntay oo uu ku dhacay qori in dhaawac aanu dayeynay oo loo shaqeeyo qalliin loo sameeyo waliba ku jiray danger sign oo yacni ahaa case very risky haddana mar labaad ku sii dhaawacmay oo inta lagu duqeeyay filiidadii dib ugu noqdeen oo haddana operation labaad u baahday inuu galo masiibo aad u weyn baa dhacday ilaahay waxaan ka rajaynaynaa intii dhimatayna inuu naxariisto inta xanuunsanaysana u boogadhayo annagana mentally and physically iyo dhinac kasta traumatized baan ka nahay in ilaahay naga kor qaado dhibkaas aan usii gudubna weli dhakhaatiirtii doctor adigana bal waxyaabihii kugu yaabka badnaa iyo qisaskii xanuunka badnaa aad meesha kala aniga magacayga waxaa la dhahaa Ibrahim Cabdi Saciid waxaan ka mid ahay shaqaalaha caafimaadka ee gobolka Sool khaasatan waliba shaqaale ka shaqeeya hospitaalka weyn qaybta ER-ka ama qaybta emergency-ga waxaan watay anigu team caafimaad ah 3 baabuur oo ambulance ah waxaa jirtay maalintii saddexaad mise maalintii afraad meelahaas ay ahayd in aanu aragnay 3 qof oo dhaawaca oo aan dabcan inaan meeshii dhaawacii ka soo qaadno aan u geli kari weynay oo mar labaad haddana aanu ku noqonnay annagoo ku foorarna markaas oo daweynayna oo doonayna inaan meesha ka soo qaadno shaqaalahayagii mid ka mida in sniper ama qorigan magaranaysa shamshooter kala dhaho mid ka mida shaqaalihii uu ku dhacay ka bacdina qaybta isbaynka wax ka gaadheen
waa la qaaday garow waa loo qaaday garow waa laga sii qaaday muqdisho loo qaaday ilaahay ha u naxariistay muqdisho ku dhintay marka runtii waxaan ku tilmaami karnaa in beegsigu uu ahaa beegsi la beegsanayay xarumaha caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka ah meel lagu beegsanayo way adag tahay in ma garanaysaay aad ka shaqaysid iyadoo intaasoo qof nagaga dhaawacmeen shaqaalaha caafimaadka ah 2 qofna ay nagaga dhimatay haddana haba yaraatee marnaba hamigaygu hoos uma dhicin ilaahay baa quraankiisa wuxuu ku leeyahay waman axyaaha fakaannama axya an-naasa jamiica qofkii qof badbaadiya naftii qofkii naf badbaadiya waxay la mid tahay qof ummadoo dhan badbaadiya alqaaliya Cabdisaaq Tera oo maanta si lama filaana cusbitaalka noogu soo booqday annagu de shaqadeena cusbitaalkaan iska dhex deganahay tusaale ahaan cusbitaalkeena oo ah cusbitaalkii ugu weynaa magaalada waxa loo yaqaano capacity-giisuna xoogaa weyn yahay waxaa si maalinla ah ugu soo dhici jiray hoobiyaal habow ah iyo kuwa taargad ah oo ku dhacay ama waxyeeleeyay qaybaha kala duwan ee cusbitaalka sida qaybta bangiga dhiiga qaybta umulaha iyo caruurta yar solarkii oxygentii ay bulshadu gadatay marka waxa loo yaqaano dagaalkuna si aad uga baaxad badan anigu muqdishan waxbarashadeedu ahayd waxaan soo joogay Soobe 1 oo aan ku qornaa cusbitaal Madiina waxaan ku tilmaami karaa dhibaatadii dhacday mid aad u baaxad weyn oo isoo xasuusisay ama sida dhaawacyadu tarabta ah ee ay isaga soo dul dhacayaan waxaan ku tilmaami karnaa inay ahayd mid ka mid ah xasuuqyadii iyo dhibaatooyinkii ugu dhibta badnaa ee taariikhaha Soomaalida soo mara aniga magacaygu waa Dr. Ismaaciil shaqaale ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala cusbitaalka weyn iyo cusbitaalada gaarka loo leeyahayba kana mid ah member ama xubin gudida caafimaadka ah ee gobolka ee dhawaan loo sameeyay si ay ula tacaalaan xaaladan adag ee uu gobolku galay horta sidaad Cabdirasaaq Tera waad ku soo aragtayba indhahaaga lagaaga warrami maayo annagu badanka maanta ay degan tahay oo jimcaanta ay nagu soo beegantay badanka uma helno waqti aanu ku waranno dhammaan waxa ay xadisadani saameyn nagu yeelatay dhammaan shaqaalihi caafimaadka ee gobolka jid ahaan maskax ahaan iyo maxaan ku ilaahdaa caafimaad ahaanba taa marka laga yimaado dhammaantayo waxaanu isku daynay in aanu sidii aanu uga qayb qaadan lahayn ama aanu u badbaadan lahayn maatidayadaas la soo laynayo inaanu gidigayada u wada xaabo qaadanay waxa dhacay wax marna la malayn karayo ma ahayn maskaxdayadu waxay marna malayn karaysay ma ahayn haddii aan mid iyo laba aan ku soo dhawaado waxyaalihii aanu u joognay intii hawshani ay bilaabantay horta hawshan waxay ku bilaabantay si kadisa abay ahayd hal cusbitaal oo u diyaarsanaa disasterka intaa la eg inuu manage gareeyo ma uu jirin alxamdulillah iyadoo sidaa tahayna horta waxaanu isku daynay intii ilaahba wax badbaadiyaan wax badbaadin karayno anigu xaadisooyinka aanu soo taagnaa waxaa ka mid ahaa in walaalkay Cabdisalaan oo nagala shaqaynayay cusbitaal ka mid ah cusbitaalada barayfadka gargaar hospital in 7 subaxnimo 4 cisho maalintii dagaalku uu socday maalintii afraad isagoo ambulance kala degaya bukaan uu hoobiye uu ku dhacay uu kadibna naftiisii anagoo arkayna uu ku naf waayay barta waad garanaysaa bal maskax ahaan shaqaalihii caafimaadku sida ay ku sii shaqayn karayaan marka walaalkood oo meeyda oo dhaawac la degay laga hor qaado waad garanaysaa maxaan ku ilaahdaa ambulansyadii soo qaadayay dhaawacyada maskax ahaan siday sii ahaanayaan dhacdooyinku aad bay u badan yihiin halkan laascaanood duqeymaha magaalada daaraheedii lagu dumiyay ee digaandigaha lagaga dhigay waa ay kala uur ku taalo badan yihiin qisaska ku duugani mid batan kale ka xanuun badan waxa jira guryo masiibo weyni ka dhacday oo aan diiradda gaar u saari doono kani
waa guriga ay sida arxan darrida ah ugu madheen qoys ka kooban hooyo iyo 7deedii carruurta ahaa. Ma jirin qof jirkiisu dhan yahay oo guriga laga helay. Guriga waxa uu martigeliyay madaafiic tirabeela. sida kuu muuqata guriga dhulka lala simay madaafiic xoogan ayaa ku dhacday waxaana ku go'ay hooyo iyo 7deedii carruur ahaa oo aan laga helinin meydkoodii balse laga helay hilbahoodii oo kala quban. baadhista duqaymaha rayidka guryahooda ciidamada Somaliland ku gumaaday waxa iyana qayb ka ah duqayntii Rayaan Cabdirashiid Axmed oo ahayd gabadh yar oo 8 jir ah. Rayaan waxay ahayd ilmo 8 jir ah waxay martay saxariir aad u daran. Rayaan walaalkeed Maxamed oo 2 jir ah iyo hooyadeed Hooda oo iyada ku curatay gurigooda ayay ku sugnaayeen xilliga Somaliland sida baan u garaacisay magaalada Tanlaascaanood. gurigooda waxa hubku ugu soo dhacayay sida dhibcaha roobka iyadoo wiilkeeda Maxamed sinta ku sidata ayay isku dayeysay in iyada iyo carruurteedu ay wada badbaadaan. Rayaan qolkan ayay hadba dhinac u cararaysay iyadoo naftu lalinayso. halkan waxa taala bombaladii Rayaan Rayaan waxa nasiib u yeelanay halka qolkan waxa ku jira waa qolkoodii hurdada. Rayaan way dhimatay gurigoodii wuu dumay nasiib wanaag waxaanu la kulannay aabihii qoyska. markii hore madaafiici soo bilowday way la soo hadashay anoo gaari ku maqan dabeedna waxay tiri wayna soo kubaareeyaan ciidankii iyo rasaastii waxaan beerkas ka dhigo guriga ku jira banaanka uga bixina intaan gaari helayo waxa way labadii guriga hurdada iyo qolkii irid banaanka ganjeelka way furteen oo waxay saareen intaas guriga ku gubtaay way furteen sidii uu balaqan yahay gabadhii yareed wax malakumad wada weeyaan marna ka barkay gashaa ku cararta marna hooyada bitafta qabsata annahay ilaahay subhanahu wa ta'ala gabadhii yareed ilaahay ku beegay hooyadiina alka gacantaas wax ka soo gaadheen adu waa ladan tahay anoo gaari ku maqan ila soo hashiyadu ooyeysa waxay tiiri guriga marfaca ku dhacay gabadhii yareed way dhimatay na soo gaadh intaan soo socday kabaha la soo baxay ambalaas oo ururisan u tawaqaaday halkii aan ilmihii iyo islaantii kala cararay alaanadana meel cidlo ay joogaan oo dhaxanta iyo qabow ku garaacaya xaaladdu sidaa weeye labada carruur oo baan lahaa sidaa weeye warkaas waa gartay waa qisa aad u xanuun kulul darbigan ka dambeeya waa darbigan waxa ku sawiran dhiigan ama dhiigii Rayaan weeye waa dhiigii Rayaan waad arkaysan waa marxaati madoon guriga sida ugu sharaxan tahay say meesha ka soo dhacday sida ay tahay waa gartay Rayaan markan ay kabadhka galeysay iyo markan ay ka daba wareegaysay markay cararayso waxa socotay rasaasta iyo madaafiicda guriga ku dhacay madaafiicda baa socotay waa gartay hadii markii hore ay kabadhka galeysay way ladnayd waxa duumanaysay ilaahay kama dhig markay ka soo baxay hooyada tafta qabsatay ayaa marfac ku dhaca ilmaha yarna naas ku naqay naas ku shaqay ilaahay waa ka badbaadiyay sintay ku haysay ilmaha way taagnaayeen dareenkaygu aad iyo aad bisu bedelay waan soo carkaba la'aan baan kala soo suuqii markaan aagii soo galay madaafiicda madaxa qaadi waayay marba meel baan ka noqday anigii baa sigtay dabeedna iyada boreys marba soo wacdaa dabeed deriska ku dhow guriga isku dhigsan deriska labadii ilmihii awla gashay iyada ooyso oo bedela maanu imi anna waa la qowmooday haddana calool adag iyo ragnimaan kala saaray xaaskii iyo ilmihii yara kala cararay ilaa iyo laanada de shakiga iyo xinta ugu jirta de ilaahay caawil khayr qaba ilaahay ga siiyo halka waxa ku taala rasaas waxa ku yaala dhiigii Rayaan waxay ka soo galayeen madaafiicdu halkaas ka soo galayeen Rayaan hilbaheedu way isku yaaleen oo ay kala goob Rayaan hilbaheedii intaas sare way go'day ambalaasta ururisay markii aan islaanta gaariga saaray maamadan soo noqday aan si aad dhiigi ururisid mise waxa bayaalay xinjirihii iyo beerkii iyo maxaan ku sheegaa hilibkeedii qayb kamida 3 habeen baan wareegay meel aan guriga ka gali waayay madaafiicdu haysatay habeen afraadka wiilayo i dhaceen oo aan aaso intii kala aas Rayaan hooyadeed iyo ilmihii u hadhay ee Maxamed Yare waxaan kaga daba tagnay magaalada Kalabayd. waxaanu soo gaadhnay Kalabayd
kalabaydh oo ka mida magaalooyinka ama tuulooyinka ugu waaweyn ee ay u qaxeen shacabkii laga barakiciyey laascaanood dhibaatooyinka kalabaydh dadka soo qaxay ka sokow waxaynu daba joognaa qisadii hooyadii ilmaheeda yar madaafiicda dusheeda ka qaateen ee ku dulgoogo'day oo u soo qaxday magaaladan kalabaydh gurigan ayay degan yihiin sida naloo tilmaamay gurigu waa guri ehelooyinkooda ka mid ah waxaa isdul degan qoysas aad u fara badan si aynu hooyada xaaladeeda u soo ogaanno ayaynu iminka gurigan u gargaraaci doonaa السلام عليكم. عليكم السلام. بس عن كرنا. هذا السلام عليكم في عنتها ولا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نونها يرمقعي. معاد عبد الرشيد أحمد. معاد عبد الرشيد أحمد. إذا أنت هذه محتها يراد اللي متينا. ريان عبد الرشيد. ريان عبد الرشيد أحمد. سيدا يودي متي. حالة يودن بيسي هذه ريان يسوي كده بيس. حالة أذك بهاد والله بلا حالة داسي إن هالشيء aroor bay inagu bilaamatay anagoo guriga joognaa marka qolka hurdadaan ku jirnay xaafadana noo dhow markii xabadii ku dhacday banaanana inta qolka hurdadaan ku jiray intaan qolka balaqanay waxaan si markay guriga ku soo dhacay leerkina isku fikiraynay aad ka cararteen oo ka baxdeen dabeetana gabadha yar wiilka yarna waan xambaarsaday inanta yarna gacantaan haystay marka kabadhka hoostiisa marka ay gashay baan ka soo saaray waxaan isiri aba aan isku meel aad ku wada dhimateen aba maxaan sheegay aad ka wada baxdeen guri ku wada noolaateen oo qolka cararteen de madaafiicdina way socotay marka adigu ilaahay ba muqadarin ma cararkii iyo badbaadaba ilaahay de inta un baa qornayd dhinac guriga anagoo barbar saa ugu naban ayay nagu dhacday ها inanta yar rayaan gacantan ayay markii dhimaysay markii gurigii de madaafiicdii wixii nagu dhacday gurigii qiiq iyo olol iyo wixii baa isqabsadeen baan isiri inanta yar gacanta haystay qolka ka baxa maxaan isiri baxmise inanta yareed ba dhiigeedii iyo gabigeedba dhulkayga bay taala ana markiiba dabadaan u booda waan qayliyo waan cararayo ambalaas urdisa qaaday wakartay rayaan markaa xeeltay xubnaheeda jirkeeda wuu kala go'ay wuu kala go'ay calooshana way kaga dhacday madaxana way kaga dhacday baa la yiri laakiin anigu mar dambe maan eegin waan eegi kari waayay guriga markii waan ka cararay laakiin waa la soo ururiyay intii nafta lahayd oo de maxaan sheegay calooshii wixii maskaxdii bartii un bay ku hadhay laakiin intii kala ambalaasta ururiso qaada dhakhtarka weyn geysay ayaan maxay tahay rabbi ha ka samirsiiyo xaalad xanuun kulul ayaad soo martay adiga dhaawac ayaa ku gaadhay ilmahan aad sinta ku sidato ilmaha yar ahaa isaguna si wax suuxayo kale ahaayo suntii iyo wixii baa maxaan sheegay gaadhay laakiin alxamdulillah isagu fiican yahay anigana dhimbiliila ay soo gaadhay barbarkano maxaan sheegay hadeer iska bogsoodin yara ladana filiidha soo gaadhay hadda reerkan halka qaxooti waa ku tiin reerkan dulsaan qaxooti baan ku nahay xaafadana joognaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa rooda inuu idin booqayo amiin هنا انتهى ولا إله دين بقدر حيو magaalada tan kalabaydh kaliya lama ciirciirayso kumanaan iyo kumanaan qax ku yimi sidoo kale waarka kalabaydh waxa uu la ciirciirayaa dhaawacyada dadka rayidka ah ee dagaalada Soomaaliland galaafatay kuwaasoo kolkii cisbitaalada laascaanood qaadi kari waayeen qaarna lagaga daba duqeeyay kadib halkan loo soo daadgureeyay halkan waxa wadan oo yaala dhaawacyadii oo intoodii ugu cuslayd loo qaaday magaalooyinka ay kamid yihiin Muqdisho iyo Garowe intii aan qaadmada helinin halkan ayay waran yihiin dhibaatooyinka ugu badani waa wadada oo raf ah amaba xidhanba taasoo sababaysa in xitaa dhaawacyada iyo ambalaasyada aad u yariba ay kala hori kari waayaan qaadmadooda waxaan tagi doonaa waararka qaybaha kale sidoo kale waxa jira dad waarka isbitaalka banaankiisa waran kuwaasoo la seexiyo hadba qoraxdu dhanka ay ka jeesato ma ahaane dhanka kale had ku jiro doctore xaaladda isbitaalka waad aragnay ugu horeyn dhaawacyo intee leeg tirada guud ku soo gaadhay ay tahay dhaawacyada soo gaadhay cusbitaalka tirada guud waa 300 ilaa 350 oo wax loo yaqaan isku jira caruur hooyooyin iyo wax loo yaqaan caruur yar yar iyo ragba kuwaas ay wax loo yaqaan saamisay madaafiicda iyo hubka cuslaa ay wax loo yaqaan loo isticmaalay iyo guriyihii ku soo dudumay
taas weeyaan dadka wax loo yaqaano halkan waxa lagu keenay dhibtaas دكتور bukaanka nooga war bukaanka wax loo yaqaan xaaladiisa soo kooma ku jira ayaa naloo keenay oo serious oo fiiro fara badan ka buuxan laabtiisa wax loo yaqaan gacmiisa marka wax loo yaqaan waanu u dadaalay walaal fiicantay saakada filiidadan muuqda ee diirka kala dagay maxay tahay walaal nooca hubku muxuu ahaa hoobiye marafidii waaweyn marka ugu ku gubay filiidadii waa kooda galay nimanka kuwii ugu horeeyna waaba dhinteenba kuwii aan la socday waa dhinteen lix baan hayno labana waa dhimatay saddexna waa ku dhaawacnay shacabkii istifaaciya baad ahayd mise rayidkii ka cararayay madaafiicda shacabkii magaalada gobolka soo dhashay baana ee ka yaacay madaafiicda kala baydh kumanaan shacab ah ayaa bannaanada iyo iskuullada wadhan waxaa shaaracyada daadsan ubadkii yaryaraa iyo haweenkii magaaladuna maaha mid qaadi karta tirada dadka la soo qaxiyey hooyooyinka halkan colaadu wadhay ayaan qaarkood xog waraystay haye maasha allah ascaanood baa ka soo qaxday ascaanood baanu ka soo qaxday waa gartay weeye madaafiicdii cuscuslaydeena la ku soo tuurayay iyo wixii ma garanaysaa guriga dhakadana la go'ayay dhulkana la go'ayay baa nagaga soo dhacay gurigii markii uu nagaga dhacay aanu isii bannaankii haddaba ku meerayso bannaanka uga baxana wiifto saa u yaacaysa bayna heshay baana heshay haye dabadeedna waa xamili weynay wixii dee dumar baanu noqona waa gartay raggu madaxuu u dhigtay annagu dee dumar baanu noqona caruurii baanu la soo carar waa la soo carar muddo intee baa laascaanood dee weligaa aad ku dhalatay waaba ku dhashay anagu laascaanood waana ku guursaday maasha allah qaxna ma arki jirin oo laascaanood ka hor nin imtixaana walayaa muuse biixi gacanta nagu dhigay hooyo haye waxa weeye waa dulmilow gurigu markuu sidaa u dhisan yahay ee uu canshuurtii ka qaato haddana wuxuu odhan jiray gidir baan ini ka qaadayaa gidirkana waxaan u arkayaa anigu inay tahay inuu dhulka ciidda naga iibinayaanu arkay canshuurta guriga nin miskiin oo indhala gurigiisii oo kanoo kale oo uu ku jiro ayuu u yimi oo wuxuu gurigu ma kidhaalaa misaadaa leh maya adeer kidhaalu iga yahay oo yaale guriga heblaayaale heblaayadii buu u tegayaa gabadhay guriga soo marihid haa imisaa nagaaga jira $40 20 adaa leh 20 anaa leh noloshaasu magaalada kaga shaqaysanta muuse cuquba allaha ku rido ubadkiisa allaha ku rido waxa weeye wuuna dulmiyey bannaan buu noo saaray dawarsi buuna baday fagaaruu noo saaray wuuna dulmiyey ilaahay baa ka doonanaya waa hooyo ku dhowaad 20 sannadood ku noolayd magaalada laascaanood oo qax halkan ku timi waxay ka hadhay shacabkii reer koonfur galbeed ee Soomaaliland hore uga caydhisay laascaanood nabad qabnaa nabad qabta magaalada laascaanood ka soo qaxday iga war xaaladda imsa maalmood halka joogtaa wax badan 10 iyo wax la jara joognaa xisaab magaalada markaa ka soo qaxay xaalku sidoo ahaa magaalada ka soo qaxana waxay humaaya lagu ridayday oo adduunka waxay dad ahaay dad ma aragtay nafta ka riyaa meeshii joogriin haata ma aragtay habada iga dhacday riyahaagii baa ku dhintay xitaa maxay tahay caruur iyo waxba kaaga midna riyi baa kaaga dhintay riya iga dhintay waa ka soo aragnay 2 maalmood markii guri lay ku jarno oo banaan u aad karno cuntana haata u karsan karin yaa ka soo aragnay maxaa aadnay oo kaas ii sheegay meel halkaas ee aadnay meesha hadar waa ka soo baqnay iyaga oo ma aragtay 2 baroon isdaba dudaysa meesha nooga imaan oo isyeeriyanaya oo iyaga ahaa waa soo aragnay inta imaan hooyo adigu markii hore ma reer muqdisho ahayd reer muqdisho ahayd reer boqol heer boqol baad imisa deganayd meeshan magaalada laascaanood magaalada laascaanood wax badan 15 sano deganaa 15 sano markaa ka hor reer boqol baad xaalad adag baad ka timaaday meeshaadna xaalad arada ugu soo aragnay haddana antana baakaas tanoo adduunka ugu gubaayo oo dab lagu shidaayo waay marka alxamdulillah ilaahay nafta hadda kulay waa nagu jirtaa naftooda ku jirtaa saaxiibadaadii iyo islaamii saaxiibadaadii dad dhintay wax dhintay wax badan aa dhintay wax badan garanaysaa dhintay haye
marka alxamdulilah ilaaha mahadle hadda intee sana maxaa isku jarnaa todoba qofood ha iskuul wa inta qof ku jirtaan qolka todoba qofood isku jarnay iyo ragii oo aruurtii oo noo dhalnay oo gabar walaashay oo dhashay inan kala oo ma aragtay aruur badan aragtay meesha lagu hayaa ha rag banaankana iska seexda aruurta wiilasha inta wada seexdaan meel aad lugta saaraysa mala waa iska korfuulna anaga dhan marka alxamdulilah khayrkan waana soo dhaweyn iskoolkaneyti yaana siiyeen ilaahay khayr ha siiyay magaalada aan soo dhaweysay maalin hadda buu ahaynaa rufa bariis ay waxaas noo keenay iyo wax sokora iyo rufaaqii laba qofood kala goosanay oo ilaahay waxa ka rajaynaa inuu idin booga dhagay magaalada idinku noqotaan ilaahay idankiis ilaahay maxkuwaas Allah naga kaxeey wallahi umada dhibaata wada qabta dhibaata rafaad ee wada qabta ilaahay ha naga kaxeey kuwaasayti dhibaato weyn dad u geysteen ummadii waa wada gooyeen ummadii waa wada wax dhaawac ay wax dhanteen way alla unaga dhamba Allah naga qabta idaabu soo duushi waaye ilaan dhulka iyo kamalaha lamba ilaahay meela u banay lamba meela oo diji marka dadka soo duulay dad oo ma aragtay iyo ka maqno diinta ilaahay ba ka maqan waa dhiig dad saan u daadinaya fiicantihiin ma reerka beelbaati mise lascaanood ka soo qaxdeen lascaanood baa ka soo qaxnay waa gartay xaaladda lascaanood markii ay soo qaxayseen xaalku sidoo ahaa si xun buu ahaa ba xabada ay nagu bilaabeen soo weerareen waa gartay maxaad ku aragtay lascaanood xabado kadib soo yaacday haye halkan ka warrama saatiin guryihiin iyo halka kee fiican حاجنا في عن halkan dagaal ma jiro dagaal ma jiro هادو سيحن حبض شرعنا الحمد لله iskuulka galaaska ahayd adigu كواد adiguna أفراد baad ahayd marka iskuuladii imka ma jira halkan wax iskuul adna saddexaad baad ahayd insha Allah wax ku noqon doonta magaaladiina adiguna labaad baad ahayd fariid adiguna towaad baad ahayd adiguna afraad baad dhiganaysaa adiguna ma buu dhigan wali iskuul adiguna koowaad baad ahayd ما شاء الله لسعانود فريدو باي باي laascaanood ayaan dib ugu laabanay magaaladan la dumiyay in badan oo kamid ah magaaladan dadkeedii wadarta loo duugay magaaladan boqolaalka kun ee ruux laga yeelay qaxootiga waran banaanada ma jirto duqayn dhacday oo aan ku talagal loola eegan guryaha madaafiicda iyo BM-ka Soomaaliland ku qaraacday magaalada laascaanood waxa kamid ah gurigii muftigii weynaa ee Soomaaliyeed Sheekh Cabdinaasir oo ah kan iga dambeeya nasiib wanaag sheekha ubadkiisiin ayaa ka badbaaday guriga oo aan alla wax ku yeelin waxa uu kamid ahaa guryaha sida xun loo duqeeyay si aan faham buuxda uga qaadato duqaymaha iyo nooca ay kala yihiin iyo xasuuqa shacab iyo duminta laascaanood wax yar aan dib kuugu celiyo noocyada duqaynta iyo qaar kamid ah hubka lagu garaacay magaalada laascaanood muran kama taagna in Soomaaliland si badheedh ah ugu garaacday nooc kasta oo kamid ah hubka ay haystaan kuwani waa qaar kamid ah ridayaasha hubka culus ee Soomaaliland ula kac ugu garaacday laascaanood kuwaas soo ridayaashu baraha bulshada ay ku baahinayaan kuwaasoo ku garaacayna noocaasoo midhan baan haysanaa iyo wax ka wanaagsan jamhuuriyadda barakaysan nabadna waayana barnaamijkeena qaybtiisan u dambeeya waxaynu ku soo qaadanaynaa dilalkii qorshaysnaa iyo sida halkan ay uga dhici jireen laascaanood Soomaaliland ayaa maamulaysay muddo ka badan 15 sanadood muddadaas Soomaaliland waxa magaalada ka joogay 80% ciidamadeeda laascaanood waxay ahayd magaalada kaliya gudaheeda Soomaaliland ku lahayd 3 saldhig ciidan waxayna ahayd magaalada kaliya ee habeenkii ciidamadeedu ka sameeyaan rondo
oo jidadkeeda ayaa habeenkii ciidamo lagu soo daadin jiray. haddana magaalooyinka kale oo dhan waa magaalada keliya ee muddada Somaliland maamulaysa lagu laayay ku dhawaad 120 qof oo aanu jirin hal qof oo loo qabtay dadkaas. tani waa sababta xaaladan heerkan soo gaarsiisay. dadku dilalka waxay u aaneynayaan inay Somaliland qayb ka ahayd, waxayna ku sababeynayaan diidmadooda taariikheed ee dadkan iyo maamulka Somaliland, taasi oo ku salaysan inaan shacabkan iyo waayeelkoodu marnaba qayb ka noqon damaca gooni isu taag. haddaba sidee dilalku u dhici jireen? waa maxay sababta dilalka loogu aaneynayo Somaliland? waxaanu helay dad ka badbaaday dilalkaasi qorshaysnaa oo maanta nabad qaba. waxaanu kale oo helay goobjoogayaal 15kaasi sannadoodba u soo joogay wixii halkan ka dhacay iyo qof kasta oo ku dhintay. qisaska laascaanood waa qisooyin isku xidhan. laascaanood muddo 15 sannadood ayaa Somaliland joogtay. 15kaas sannadoodba dilal ayaa ka dhacay. dilalkii ayaa keenay in dabkani qarxo, kacdoon isu bedelo, bulshadu ku shirto, go'aamo ka soo baxaan, dabadeed dagaal dhaco. dacdooyinkaasi isaba joog ah intay dhacayeen oo dhanba waxaa jiray dad aan dhan uga bixino shakhsiyaad ah oo ka mid ah haldoorkii nabad galay. aadan baa ka mid ah. aadan ku soo dhawow. cabsaaq waa dhawahay walaal, waa mahadsantahay. kulley waxaan u malaynayaa inta ay wax dhacayeen gobolka Sool meelna ugama bixin. dhacdooyinkuna mid kasta ay timaado way xanuun badnayd runtii, oo shakhsi ka mid ah haldoorka magaalada marka la dilo waa guud ahaan gobolku waa cid waliba waa ka naxasay, qof waliba wuxuu islaa bari adigana kugu dhacsaa. dadkii ugu horreeyay markaan soo qaado waxaa ku jiray macallinkii Saleebaan Jaamac Xayaan, xilligii burburka dadkii kacay baanu ahayn annagu, ummadda wax baray. waxaa la dilay isagoo masaajid ka soo baxay oo gurigiisii wax badan aanu jirin. meesha meel ku dhow meherad baa ahayd, shaa uu fadhiisan jiray oo ka shaahi jiray meheradda markaa kuma soo leexan. toos buu u baxay. markuu salaadii cisho soo tukaday gurigiisa intuusan gaadhin gurigiisa iyo masaajidka dhexdiisa baa lagu dilay. allah u naxariisto isaga iyo intii dhimatayba. ma soo koobi karo dadka dhintay kulli qof aanan garanayn kuma jirin. waa tahay qisooyinka ka dhacay oo mid walba aad u soo joogtay adigoo lilaahi waxa Ilaah kugu ogyahay ka sheegaya. xambaa jirta tiraahda dadka reer Sool qabtaan oo ah dadkan Somaliland 15 sano joogtay, ciidankeeda ugu badan 80% laascaanood bay deganayeen. haddanaba 120 in ka badan baa halkan lagu dilay. hal qof looma soo qaban, hal qof cidii dishay lama arag. xantaa waxa qabtaan oo dusha u saartaan Somaliland inay tahay xaqiiqooyinka aad dilalka uga soo joogtay. ku soo dhawow. waxa sababta ay dadku uga saarayaan in ay dilalka Somaliland ka dambayso. anu waxaan ahay dadka gaadiidleyda ama meeladaha shaqada iyo marka kara waxaan gaadiidkooda ka haysto guryahaada. xilliyada shakhsi la dilaya waxaa dhacday checkpoint walba in boolis joogo. ciidan baa magaalada lagu soo daadiyaa. ciidanka booliska waxaa ka daran militariga Somaliland laascaanood meel aan ahayn ma joogo. ma aha militariga laftirkiisu mid magaalada ka baxsan. militarigu waa mid laftirkiisu magaalada degan. waxaa la keenayaa ciidamada magaalada lagu soo raraya, gaari walba waa la baadhaya. mararka qaar waxaa dhacda baabuurta beersolle iyo waxaas lagu xidhaa in laga fiiqo oo la baneeyo gaariga. mararka qaar waxaa dhici karta ilaa dabada ilaa shirarka dhammaan gaariga in la baadho. adna ma ogid wax la baadhayo. isla hameenka ama hameenka ku xiga qof la dilaa. dhacdada ka sii daran ay tahay waxaa lagu dilayaa qofka booliiska meel masaafo aan ka fogeyn. booliisku meesha joogo inta badan 90% markaan dee Ilaahay ka baqayo meel uu ka gaari karo hadduu eriyado qofka baa lagu dilayaa qofka inta badan. meelaha dadka lagu laayaana waa guriga ilinkiisa loo sii galo, masaajidka markuu ka soo baxo oo la dilo, meelaha maqaaxiyaha la iskugu yimaado. dhacdooyinka kale yaab kale waxay ka mid ah meel maqaaxi ay fadhido 50 qof 60 qof baa qofkaasi soo gelaya kadibna qofku ku dilaya. qofka qof garanaya kuma jiro. dadkuna waa dad is yaqaano oo is wada garanay. wax marka kalifi waayay dadkuna dad hubaysan ma hubki waa laga dhigay oo ma hubaysnayn dadku oo dad shacab oo civilian ay ahaayeen. waxaa dhacday marka in qof uu yiraahdo qofka anaa garanaya. qofkii waa la kaxaynayaa, maxkamadda la geynayaa. qofkii kan ma aha, ilaahayba waa ugu beegi karaaba inuu isaga yahay. dad la gartay baa jira.
marka qofka qofkii markhaatiga furo qofkii qof ilaalinaya ama cid ilaalinaysa ama maamul ama dawlad ilaalinaysa ma jirto markuu markhaatiga furo kadib hameen labo saddex kadib baa isna la dilaya qofkii markhaatiga furay goobtan way goobtii lagu dhaawacay gumaadkiisa tabajoog ay ka socday degmada Laascaanood halkan ayay ka dhacday halkan ku fadhiyay kadib halkan ayaan orday dhabadan ayaan orday marka aan dhabadan orday wuu iga soo daba orday laydkaas ayuu isku dayay inuu toogto si uu waqtiga laydka iyo wajigiisa iyo systemkiisa qaabka laydkaas ay wadamay inuu toogto waa toogtay kadib waan orodnay halka marka aan orodnay ayaa aan buu iga soo daba orday halkaas dhagxaantu yaaliin ayuu wiil kale ana ordaya wiil kale ku dhaawacay kadib waan sii orday wuu sii baxsaday halkaas ay taagan tahay halkaas isku yaadhu uu taagan yahay ayuu igaga soo haray intuusan iga soo harin ka hor waxaa halkaa argada ka ridayay ciidamada bariiska baa xabado ka ridayay hawaawarida kadib cirka ayay u ridayeen sida la ajrigeed markaan arkay halkaan in bariisku xabado ka soo ridayaan baan waxaan laabtay dhabada kale waxaan istaagay goob kale oo xaggan ka dambaysa waan dhaawacanahay 5 xabadood baa igu yaalla markaas dadka ayaan gacan weydiistay gacan kama helin haddana waan sii orday luuqaan ka laabtay xagga kale ergada ay joogaan dabadeeda kale ayaan waxaan wiilal aan aqoonsaday ay iga qaadeen bajaaj 5 xabo ay kala dhaceen halkaas laba halkana laba xagga dambe ah bay iga kala dhaceen ciidanka Soomaaliland boolisku halkaas ay taagnaayeen ninkuna waa daba ordayay waxa barbarkayga fadhiya xildhibaan Yaasiin oo kamid ah waayeelka waxgaradka iyo mudanka magaaladan aynu ku sugannahay xildhibaan waxaan joognaa Laascaanood xaalkeeda aan ku sugan tahay maanta aad aragto xaalka guud iyo bal waxaad soo joogtay taariikhaha iyo taxanta la soo maray ku soo dhawow magaaladu waxay isu bedeshay goob dagaal waxaa halkan sidaad ka warqabtaan joogay muddo 15 sano ah oo ku soo duulay oo dulimaad ku qabsaday ciidamada maamulka Soomaaliland boqolkiiba 85 ciidanka Soomaaliland wuxuu ku sugnaa gobolka Sool marka laga reebo wax yar oo kaantaroolada joogay magaalada ku sugnaay 15 sano ay joogeen waxaa dhintay 119 qof oo labeentii dadka ah waa caaqil nin garbood culimo iyo wixii la mid ah waxaa dhici jirtay oo intii badnaydba boqolkiiba 95 habeenka qof dhimanayo ee la dilayo waxaa la arki jiray ciidamo magaalada soo galay oo sidii wax roondo oo kala ah magaalada kala xidha marka ay ciidamadaas magaalada soo galaan 10 minutes ama 15 minutes wixii ka dambeeya oo ay ka baxaan magaalada korontada la diminaya haday doonto oo amar lagu soo rogayaa qoliyaha korontada looleeyahay korontada caawa hawlgal baa jira qof baa la dilayaa marka ay soo galaan baa qof ku dhimanaya marka ay soo galaan baa qof ku dhimanaya meeshii baaritaan la sameyn lahaa ee wax la raadin lahaa ciidankii waa faaruqinaya goobihii hawsh ka dhacday marka nimayo waxani wax aynu aragnay ma aha wax lagu masaali karo oo aan oran karo adduunka ama caalamka wax ka dhaca kama dhicin gobolka Sool maxaa loogu sababeynaya in Soomaaliland dadka la isay maadaama iyadiiba dawladu ah caawisaaq waa mahadsantahay walaal horta inta waqtigaas dilku soconayay gobolka aan joogay dadka waqtiyada la leynayo ciidamada booliiska Soomaaliland waxay sameynayaan waxa la wixii booliis magaalada jooga waxa lagu daadinayaa meelaha shaariciyada meelaha iskuisyada meelaha dadku ay iskugu yimaadaan marka dadku way la qabsadeen oo hameenka ay booliiska badan arkaan booliiska waxay ku yiraahdaan caawa yaa la dilayaa waa wax iska waaqaco ay dadku garanayaan waxa sida loo leeyahayna booliiska agtiisa qofkii lagu dilayaa waxa dhici karta booliisku inuu xabadba ku ridinba aysan qofka badbaadin waxa jirta dad iyagoo xabad la daba socdo oo shacab ah booliiska la soo galay aysan xabadba ku ridin waxa jirta qofkii iyadoo la eryanay meel booliiska ku dhow inuu qofkii soo galay inaan qofkii laga daba tagin qofkii oo xaqiiqa ah oo aanan oo dhacdooyin dhacay marka
sida dadku ay u soolinayaan arrinta noocaas weeye beegsiga wala beegsanaya dadka shacabka waxay ahaayeen dadkii indhaha u ahaa dadka shacabka ugu dhowaa ama haldoorka u ahaa ee la is odhan kari lahaa dad baa jirta Soomaalidu waxay tiraahdaa dad baa birimageeda birimageedadu markaa waxay tahay caruurta iyo haweenka iyo qofka markaa dadka samata bixin kara indheer garadka marka dadka la leeynayay dadkaas ay ahaayeen dadka u dhawaa dadka hoggaanka biri ka maalin ama mustaqbalka u noqon karayay ilaa iminkana dadkaas dhammaantood la laayay cid ay leeyahay qofkaas qofka dilay oo ay ku cadahay ma ay jirto mudane yaasiin waxaad sheegtay marka magaalada ciidamada soo galo kaligaaba maaha ay dadkan magaaladan oo dhan qabaan ay u soo joogeen kolka ciidamada Soomaaliland magaalada soo galaan habeenka ee dilku dhaco ciidankuna ka baxo qofkiina aan lahaynin way soo noqotay ilaa ay gaadhay 120 qof in ku dhow maxaa waxa daawanaya urur caqli fara badan barnaamijka maxaad ku sababeynaysaa in Soomaaliland ay dilayso dad waa maasan tahay waxaan ku sababeynayaa dadkan taariikhdooda marka dib loo raaco dadkan dilku wuxuu ugu dhacay oo loo bartilmaameedsanayaa waa Soomaalinimo waxay diidan yihiin fikirka Somaliland ama maamulka Somaliland ee la magac baxay inay ka go'aan Soomaaliya waxaa qaba fikirka inay Soomaalinimo dadkani ku suntan yihiin ismadooda waxgaradkooda ayaa qaba fikirka waxa la abuuraya cabsi waxa kaloo la jirtay waxa la doonayay labeenta dadka in laga laayo si dadka ay isugu hadho wax magarato marka waxa loo sheegayo wax magaratada ay u hogaansanaadaan dilka meeshan ka dhacay 15 sano soconayay ma ahayn dil caadi ma ahayn hahay waa gartay dilalka inta badan cid looma qaban cid looma xidhinin maydaan arag qof loo tooganayo waayeelkii magaalada ahaydeen maamulkii gobolka joogay iyo madaxdii Soomaaliland halka joogi jirtay marna ma ula tagteen ma tiraadeen warse wax yihiin absa waa maxsan tahay halka aan ku saxo waxa jira dad la xidhay oo arinta loo xidhay laakiin dadku maxay ahaayeen waad ogtahay marka dad deegaan degan yahay conflict ama isku dhac ama waxba dhex mara walaalabaha noqdeen mar haday qariyad ilaahay uu ku wada beeray kadibna waxa laga faa'iideysan jiray jaaniska cidda marka ay wax ay sayaan iyadoo la rabo in colaad ama dhibaato weyn la sii dhex dhigo kadibna waxa la sameeyaa ciddii ay conflictiga la oranayay way ka dhaxaysay baa guryahoodii niman aaraaruyi la yiraahdaa la soo diri jiray guryahooda loo daadan jiray kadibna dadkaas la xidhxidhi jiray kadibna marka ay eheladii tagto in badan oo kamid ah anigu waa la socday waan u tagay markii eheladii u tagto waxa la oran jiray baadhis baan wadnaa dadkaas masaakiinta markay 3 bilood 6 bilood 5 bilood ay xidhnaadaan baa la oran jiray waxba kuma haynay dhaarsada oo markii intaydan qaban inaan dulmi baad gasheen oo 6 bilood bay idin xidhnaayeen maxaad u oran weydeen ka dhaarsada marka in dadkii tuhum bay geliyeen dadkaas ay noqon jirtay in laga dhaarsado iyaguna kitaabka kadibna dadka kalena ay ku samraan sida ay ku samraan laakiin qof la soo qabtay oo la yiri shakhsi waa kan waxa la soo xiri jiray dumar waxa la soo xiri jiray dhalinyaro guri iska hurda oo marka loo eelinayo inay qofkan la dilay reerkooda inay conflict ka dhaxeeyo oo colaad iyo dhibaato wuxuuna ay dhex mareen halka waxaan u fahmay habeenkii kolka ciidan la soo daadiyay sharciyadii la xidhay qof la dilay qofkii ciidankii magaalada lagu soo daadiyay aana qofkii dilaaga ahaa qabanin subaxa marka tiraadaan dadkii yaa dilayna dad kala loo aarariyadu timaado dad kala loo dhacay masaasa dadkii kale marka loo dhacayna la yiraahdo reer hebel baa loo hayaa ninkii xalay la dilay arintaasi ma sababtay conflict ama colaado ama ba isku dhac ama aanooyin in badan oo kamid ah reero badan baa isku laayay kuwa badan baa markay arkeen oo de marxaladii stage waa laga soo gudbaya dadka laftirkooda way arkayaan waxan markay reer isku dhaceen intii dad aan waxba geysan la yiri dadkaas wax dilay ay isku dhaceen oo ay dad kale iska dileen ama la qabqabtay oo dad kale loo qabqabtay kadib dadkii waxay ogaadeen in uu isku dhac dhexdooda la wado arinta waa laga soo gudbay markii dambe oo ma ay dhici jirin in
reerku marka dambe waqtiyadii dambe waxa dhici jirtay marka reer loo liiraado reer hebel buu ahaa anigu reer hebel waxba ma haysan qofka dilay hadda haysaana keena hadda ahayn waxyaabaha kale ee dhici jiray waxa kamid ah dadka ka mudaharaada arrimaha waa la xidhi jiray kacdoonka markay sameeyaan waa la xidhi jiray marka la xidho dad fara badan oo aad u badan baa la xidhi jiray dadka marka lacag baa laga qaadi jiray marka la soo deynayo dambe dadka lacag baa laga qaadi jiray halkaas aan saan u fahmo waxaad u jeedaa qof baa xalay la dilay shacabku waa kuwa mudaharaadi jiray qof la dilay yaa oran jiray yaa dilay dadka waa la xidhxidhi jiray marka waxaad leedahay dadkii la xidhxidhay jeerasha Soomaaliland lagu ku gurtay baa haddana madax furasho loo qaadan jiray lacag dadka la xidhxidhay waa haddana waxa laga qaadi jiray lacag marka ay eheladoodii iyo dadkoodii ay yiraahdaan dad baa anaga naga dhintay dadkana dad dhalinyaro ah ahaayeen way kacaan kadibna dadkii noo soo daayay ala qof $100 150 baa laga qaadi jiray waana wax magaaladu way wada ogtahay waxa yaabaha kale ee gobolka ka dhici jiray waxa kamid ah laba qof baa wax isku qabsanaya marka qisooyinka aan taan ku sheegay hadda madax furashada gabadh baa ii timi caruur agoon ay haysataa family baa nahay kadibna waxay tiri gabadhii baa laga xidhay xalay kadibna waan u tagay marka nin Axmed la yiraahdo gabadhu ku jirtay dhalinyarada la xidhay way ku jirtay kadibna gabadhu waa agoon hooyadeed waxba ma haysato aabaheedna waa dhintay kadibna waxaan ku iri gabadha yar gabadhana waxay ii xaqiijisay inay caana u soo dirsatay aysan xataa mudaharaad ku jirinba kadibna gabadhii waxaan ku iri ninkii baan u tagay ciidanka booliska markaa haystay oo nin Axmed la yiraahdo ahaa waqtiga ninkaas haystay kadibna waxaan ku iri gabadha waxaan rabaa in la soo daayo kadibna wuxuu yiri saldhiga ninka haystay hebel oo tag dadkana waa la sii deynayaa ninkii baan u tagay ninkii wuxuu yiri ciidanku hawlgal buu galay xalay oo dhan uu soconayay dad buu soo qabtay waxa qofkii laga rabaa $100 $100 ma hayo oo ma bixinayo gabadha siida gabadhu agoon hooyadeedna waxa ma haysato ciidan hadda uga soo qaadana ma jirto maya marka waxa dhacday inaan $60 anu aan ka bixiyay gabadhiina sida lagu soo daayay marka waa wax dhacay oo iska cadaana oo jira waxyaabaha kale laba qof oo deegaanka kamid ah ama dadka deegaanka is qabsanaya qof waxa loo qabsanayaa bilmetal inuu qof wax ka xaday oo kale ama wax ka qaatay oo kale qofkii uu ka dhaarsanaya inuu san wax ka qaadan kadib Soomaaliland marka in qofkii la sii daayo qofka waa la haynayaa ilaa intuu ganax ka bixinayo isagoo aan waxba lagu lahayn oo tuunka dadku way istuhumaan bini'aadamka oo qof aan waxba qaadan baa leeyahay waxa soo qaatay dadka markii wax dhex maraan waxa khasab qofka meesha soo galay in lacag laga qaado marka total haddaad stationka iyo jeelka qof u galo ama isqabsi ama tuhun ama mudaharaad u shameeyay haddii la soo daynayo waa inuu lacag bixiyo khasabtaas waa khasab waa wax dhacay deegaanka dadka dhan way ogyihiin